fahamka marka dad badan ku jira wuxuu yahay inay u qaataan marar fara badan wax tarku inuu wax waaweyn noqdo laakiin waa sidaas si ka gidisano cunsur kasta ama xibin kasta oo mujtamaca kamida wax tar uu noqon karaa khayr iyo wanaagna waa biirin karaa awoodiisa dhaqaale intii doonaha akaato aqligiisu intuu doonaha la ekaado cilmigiisu intuu doonaha la ekaado rag iyo dumar midku doonaha ahaado صراحة روح آن مجتمع وحكو بيرين كرين ما بتشرو إني أردت سيدا استهي وحاكو توسيا أحاديث النبي صلوات ربي وسلام عليه وحيالا فربضان وعد والبقوان كرتا مركا ميشا تعالى النبي قالونا كور رمي صلوات ربي وسلام عليه قيمة وإن إله أكتي سوكو فرد أين وحا كمدا تلمان وحا كمدا أرماء أوت المامي حديث أبي تميم الجهيمي وحكورنا يانين كمدا قوم كيسا وصحابة النبي كمدا صلى الله عليه وسلم وحنين كاسلية هي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة جدتك مقالة المدينة ميت كمدا أيان النبي قلق كل مي نبي والصعودة أيان جد قلق كل مي مقالة المدينة جدتك إذا كمدا وعليه إزار من قطن منبتر الحاشية نبي وحو قبا مركا هوس قنتي هوس كسميسان عدبي صوف او فيدا كغوغو اي حاجه هوس فيدا هوسا وا غوغو اي وا كدماده اسغو هوس قنتي نوعاس قبا با النبي الله كل مي صلى الله عليه وسلم مركز واحد عليك السلام يا رسول الله مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن عليك السلام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى ورميان بنتي سلام هذه سلام يسوى سلامتي قوة بنتي لسلام كريم عليك السلام وعليك هذا الله مريم kuwa dhintay baa lagu salaamaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka nool salaantoodu sida ma salaamun alaykum marratayn aw thalathan hakada sida dhabi salaamun alaykum ama assalamu ama salaamun labadu waa sax salaamun alaykum taamarku uga jawaabay ayaa wuxuu yiri wasa'altuhu 'anil izar هوس كنتيغان هادنا ويديي رسولك إلهي معوستيدا أما هوس كنتيغيغا أما مرضى جيركا قيبتيسا هوري قرينيسا حقين جيا حقين با ugu hooseysoon gaarsiin kara waxaan ku yiri ayna atazir حقين ka guntada hoos kuntigayga aan gaarsiin فأقنع ظهره بعظم ساقه النبي صلى الله عليه وسلم intuu dhabarkiisa foorariyay oo dhudhunka laftiisa lugta dhudhunkeeda lafteeda intuu taagtay ayaa wuxuu yiri haa huna tazir halkan ka gunto macna guntigaagu halka ha gaaro dhudhunka lafta dhudhunka dhexda fa in abayta hadaditu fa haa huna asfala min dhalik hadad midda dhudhunka dhexdiisa diido hoos u dhig oo halkan gee waa meel ka yar hoosaysa فإن أبيت فها هنا فوق الكعبين هذا ديدو هل كان مركا جي وميل كسي هوسيسا وأنقوغنا ككريس لبدا أنقو والنبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيت هذا ديدو أنقوغي بلا غاري زوما هذا ديد أنقوغ وحي ككري وأنقو هوستيس هذا مركا فإن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور إلهي مركا ما جعل مد فام بدن وهذا نحرق كبير بدن مد اسقاط قاده لأن مرضو أنقوغ هوس لوغا دغو سيده حديث كلا تلمامه من المخيله وحرق كبير سيده درده هداب رك تهيب ودن دمر ahayn maradaada anqowgiyo wixii ka koray anqowga waa inay ka saarto taana waa iga jawaabay labadaaba hadda ujeedadeenu ma laakiin xadiiska ina la maray كدب waxaan weydiiyay oo saaltu 'an al-ma'ruf halkan waa meeshaan u socdo waxaan weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii wanaag ma'ruf
wixii shariicada agteeda wanaag ku ah oo loo baahan yahay inaan sameeyo muxuu yahay markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam laa taxqiranna min almacruufi shay'a wixii wanaaga waxtar ah anficid ah ha yaraysanin intuu dooniba ha la ekaaday yuusan kula yaraanin ilahay agtiisa wax ku yar ma jiro walow an tucطiya silata alxabli wax kale haddaad weyda xataa mid xadhig ka kala go'an yahay wuxuu xadhigga ku xidhiidhsan lahaa haddaad siiso meeshan u joogaa ceel buu shubanayaa waxbuu xidhxidhahayaa xadhiggii baa ka kala go'ay aduguna xadhigga wixii uu ku xidhiidhin lahaa baad haysaa intaaba xataa ha noqoto walow an tucطiya shisca annacli shisciga waxaa la yidhahdaa indhasha kabta la qaadan jiray xadhigga waxaan u jeedaa gadaal mara ee cidhibta haya baa shisci la dhahaa waxaa kaloo la dhahaa suulka iyo farta ku xigta dhexdooda ayadana yani qadarka gale ee lugta haya ayadana shisci waa la yidhahda waa lugta iyo kabta waxa isu haya ee isu celinaya war mid baa kabtii ka go'da ya meeshan uu joogo jidkuu marayaa kabtii baa ka go'da kabtii markii ka go'da indhashii uu ku kaban lahaa ayaad haysaa walow inaad ku saaciidaysaba ha noqoto walow an tufriqa min dalwika fii inaa'i almustasqi ceel baad shubanaysaayoo biyaad shubaysaa dad biyo rabaa kuu yimid biyihii wadaanta kuugu jireen ceelka ka soo saartay inaad weelashooda ugu shubtaba ha noqoto waa wanaag ha yaraysanin walow an tunaxiya shay'a can طariiqi الnaasi yu'diihim jidka waxa yaallee dadka dhibaya qodaxda iyo qoriga iyo qashinka iyo waxyaalaha jidadka yaallee dadku ku dhibaatoonayaan inaad ka zuuliso ood ka qaaddood jidka ka leexisaba ha noqotee imaaطaة اlأdaa can الطariiq ya warma dhulkaan xaadxaadhi karna aaway dawladdii hoosaa la leeyahay war adaa dawladdii hoosaa ya mooskan dhulka ku dhacay dadku ku simbiracanayaan qodaxdan meesha taalla mismaarkan dadka mudaya laantan dadka dhibaysa ha dhaafina ka qabo ya soo waxtar ma adigu waxtar moodi maysid dayib ninkaagii qaawanaaya marka labada mara qabay ee sugahayay inuu shaaha laga bixi ee lahaa anaa la ii jeedaa waxa lay taro xataa mooska jidka kama qaadi kartid miya ya mise waxaad u qaadatay macruufka iyo waxtarnimada hawl weyn in la qabto miyaad u qaadatay tanaaba weyn saas daraaddeed ruux muslim ah oo mujtamaciisa aan wax tari karin ama wax ku biirin karin maba jiraba laanna majaalaadka ummadda wax lagu tari karo baa aad u fara badan ilaahayna jecel yahay tabaaraka wa tacala waa sii waday nebigeennu sal lla lay waslam wuxuu yidhi walow an talqaa akhaaka wawajhuka ilayhi munطaliq wax kale ma weyn walaalkaa markaad la kulmayso dadka jidka isaga hor imaanaysaan weji furan kula kulan dadka wejiga u fur muusood ya ilkaha u caddee weji macbuusnimada iska dah dadka markaad la kulmayso kaa hor yimaadaan muusood oo wejiga fur waa wax weyn soo ma waa waxtar wuxuu nabigu yuri sal alla alay wasalam xadiidka waa sii wadeeyey walow an talqaa akhaaka fatusallima calayh walaalkaabaad la kulantay markaasaad salaantay haddaa taaba ha noqoto saxaabada rag ka mid ah waxay samayn jireen ilaan salaanta faafiyaa la yidhi subaxdii markuu waagu baryo oo suuqa iyo ganacsi hawlaha la soo ah asagu waa iska baxayaayo suuquu soo maraya ma ganacsi buu burburinayaa maalaad buu rabaa maya dadku soo salaamaya asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa soo dharkaya markuu soo dharku soo hoyanaya isagoo ajirka soo noolaa